kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageystayaal idin ahaantiin ku soo dhawaada casharkeenii labaad ee farqurxinta. maanta waxaan ka hadli doonaa shuruucda farqurxinta. haddaba aan guda galno casharka. introduction shuruucda farta. waxaan u qaybinaynaa 26 xabo ABCD da oo ka kooban 26 xabo. waxaan u qaybinaynaa 3 meel ama 3 qaybood. saddexdaas oo kala ah qaybta koowaad madaxley. qaybta koowaad waxaan ka dhigaynaa madaxley. madax ma da dax adu kula jiya dax ley ley madaxley kuwaas oo kala ah bracket aan furaynaa. waxaan gelinaynaa madaxleyda oo dhan. waxaa ugu soo horeyda xarafka la dhahayo B for book ah. xarafka ku xiga waa D. xarafka ku xiga waa F. xarafka ku xiga waa H. xarafka ku xiga waa K. xarafka ku xiga waa T ayaa ku xigto. xarafka ku xiga waa L. xarafka ku xigana ma jiro bracket ku xal. intaas ayay ka kooban tahay madaxleyda. madaxleyda waa intaas. intaan waa madaxley. 1 2 3 4 5 6 7 xabo waa madaxley. qaybta labaad iyadana waxaa la yiraahdaa lugley. qaybta labaad waxaa la yiraahdaa iyagana lugley. lugley iyagana waa sheegaynaa bracket aan furaynaa waan tirinaynaa iyagana lugleyda. iyaguna waxay kala yihiin xarafka ugu horeeya waxa uu yahay xarafka la yiraahdo J. xarafka la yiraahdo J waxa ku xigo G. xarafka la yiraahdo G waxa ku xigo xarafka la yiraahdo B. xarafka B waxa ku xigo xarafka la yiraahdo Q Y cross bracket ama intaas ay ku yihiin. number 3 ayaa soo hartay. iyaduna waxa la yiraahdaa qaybta saddexaad waxa waa ubucley. ubucley ayaa la yiraahdaa. ubucley waa qaybta saddexaad ee ugu dambaysa. ubucley iyaguna waan kala sheegaynaa bracket ayaan furaynaa. meesha ayaan ku aruurinaynaa ubucleyda inta ay ka kooban yihiin. haddaba aan furno. iyaguna waxay kala yihiin xarafka ugu horeeya waxa uu noqonayaa xarafka C. xarafka ku xiga waa M. xarafka ku xiga waa N. xarafka ku xiga waa R. xarafka ku xiga waa S. xarafka ku xiga waa V. xarafka ku xiga waa W. xarafka ku xiga waa X. xarafka ku xigana waa Z. intaas waxaa dheer 5 xabo ee soo socota. xarfahan la kala yiraahdo A E I O iyo U waa 5 vowel ee